waxaan u yeerayaa mediatorkii dooda waa soo gaaray baan filayaa waa Dr. Cabdulqaadir Cali Warsame intaanan marka aanan dooda u gelin haddii eebeedmo kelmad gaaban aan waxaa siinaynaa Suldaan Qorane si uu noo tawjiihiyo insha Allah mahadsanidin khayr Allah idin siiyo wax kale ma aha waa ka raysanay maskigi face maskigi waa mahadsantihiin qoladii face maskigana waa soo cawdeen oo waxay yiraahdeen mushkilada waxa wada annaga ma aha waa media nala raadsanayo tooshka marka media waxaan ka codsanaynaa masawir aan ugu haboonayn inaysan gudbinin iyadan insha Allah ta'ala taas waa taas weey qodobka xiga kelmadda hadaaytoolaan iri waxa la yiri waxa dadku isku maandhaafaan maqsuudun lam yufham iyo mafhuumun lam yuqsad ma aysan ahayn sheekhi doctorka ahaa inaan ka daba hadlahayo man iyo qof ka daba hadli lahaa sheekhana wuxuu sheegay saxbay ahaayeen hal baan ku darayo codsigiisi in ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar hore uu oofiyay madaxweynaha inuu ku soo saaro degree waa hore inuu madaxweyne degree ku soo saaray oo ay u baahan tahay kaliya in la sii daba galo taas waa taa ha miya marsuub cusub in loo baahan yahay baan anna ku taageersanahay doctorka soo warcad ma taa waa qodobka xiga hadda ka hor baa nin mashaayikhda shabaab ka mid ah isoo wacay wuxuu yiri shariicada kuma dhaqantaan waxaan yiri magaalnimaan ku dhaqanaa marka maya buu yiri lama tadbiiqiyo salaada iyo soonka iyo guurka xalaasha ah iyo madaarista quraanka iyo shacaa'irta iyo xijaabka iyo dadkan isugu tagahaya wax walba inay weydiiyaan beeci iyo sharihi iyo kulli waxaas oo dhan kufri ah maya wuxuu yiri dastuurka baa wuxuu yahay gaalnimo dastuurka waxa ku taala wadanku waxa uu leeyahay madaxweyne gaalnimo xuduudiisa Itoobiya iyo Kenya weeye magaalnimo 4 sano madaxweynaha la dooranayaa magaalnimo caasimadiisa waa Muqdisho magaalnimo diinta islaamka diiman ahayn laguma faafin kara magaalnimo maxaa la yiraahdaa diinta islaamka wixii ka soo horjeeda wax ka jiraan magaalnimo arinta marka waxaan kaliya ka baraarujinayay wax ay uga faa'iideysan karaan qoladii kale kaliya inta dhinacaas weey in ilaahay kuma samadiide usana soo marin marka wixii aan u soconin oo si kale liiga fahmay laga raali noqdo intaas ay ahayd wajazaakumullahu khayral jazaa waa mahadsan yahay suldaanka waxaan toos u aadaynaa marka barnaamijkeeni dooda ayaan toos u aadaynaa Dr. Warsame adiga noo xiriirin doona waxaan rajaynayaa qof kasta inuu og yahay mawduuciisa adigana waa ku haysataa adigana waad haysataa dabcan shaqo badan noo taala salaadii way soo dhowdahay weydiimo hadaayto noo qornaa aan ka gudubnay xitaa way jiraan marka waxaan codsanaynaa in la soo gaabiyo nuxurkana la aado hadal tiradu mararka qaar nuxurka waxyaabaha aad sheegaysa ayay dhuminayaan marka waxaan siinaynaa martida insha Allah min 4 daqiiqo ayaan siinaynaa ay ku soo koobayaan waa mahadsantahay doctor بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وليال داودياشا تلفزيون قرنكا ونقد داونا يأدونك دافيهيسا ومالك صدحات شركي علماء الصوماليات وحنرجينا إن شاء الله تعالى إن تكفى إذا دود علميات كان مانتا إصاب بندق الدونان قيب كم علماء الصوماليات waxaan insha Allah ta'ala idinka rajaynayaa culimadana inaad xoogaa soo koobtaan qof si ay dadku u fahmi karaan hadalka aad u dhigtaan maadaama waqtigu uu yar yahay yuusa hadalkuna inaga baahin insha Allah ta'ala markaas baanka ama dood cilmiyeedka qaybta ugu horeysa waxay noqonaysaa kaalinta cadaaladdu ay ku leedahay taabagelinta dawladnimada Dr. Ahmed Al-Qasimi ku soo dhawow insha Allah ta'ala waqtigana si fiican insha Allah uga faa'iideyso hadaad wax noo beekhamiisida nagu sadaqaysatidna oo mahadsantahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خيارتا علماء مدحدا مسؤولين تا حبنها نواب الشعب هذي جوغان دمان علماء شرفت بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا إسلامك كذب موضوع على إيه قبتي وحجر شاكو وحنا وصدقيسو أنا وحنيه لها أنا وحي وصدقيسو مسكين بان هاي وقتك تاسا يدنا أباهن أنت كذب خيارتان وحرب بيننا هذا كي يكون بالله قيب مهم oo aan isleeyahay culimmadii aad u hadashay aad looma baraarujinin taas oo ay ila muuqato haddaan isku baraarujinno inaan ajendaha shirkeennan iyo muhiimadiisa fahmayno taasi waxay ila tahay walaalahayow inay tahay mal calaaqatu bayna alxaakim walmaxkuum bayna alxaakim walculamaa hadal waxaa jira ma'thuuraho cajiib ah oo la yidhaaho khayru lculamaa'i khayru lxukaami أقربهم إلى العلماء وشر الحكام أبعدهم عن العلماء وشر العلماء أقربهم إلى الحكام وخير العلماء أبعدهم عن الحكام طبعا لماذا ورن أفر صدق أنتوي عالمك أدوانا يا حاكمك وحالك يا بائن سنبر رحوضه oo mushaarka fiican iyo baabuurta loo hadiyeyn iyo intuu marka ka raaxaysto oo ka dhargo oo fatwadii xaq ahayd qaybo kamida ka leexdo oo ka fogaado caalimka xukaamta ka fogaanayana waa qof diintiisa ilaashanayo oo inuu manaasib iyo ku kadsoomo ka baqayo oo diinta ilaahay iyo fidinteeda iyo dacwada u go'ay xaakimka culimada u yeertaana waa qof khayrka iyo cilmiga iyo an-nasiixa iyo ar-rushdi u baahan حاكمك علماء كدير هذانا ومستبدك يطاغيها أن ربين إن إلهي كعبس الله يراهو حق الحسوسيو عدالة الحسوسيو سيدا درتيت بانينك وقشر بدن حكامته وانينك علماء دسكفوغا يسك حجابة هذا بهذا سيداته ولا لها يوم شركنا نمحوك لغاية هاي مانتا وفرصة قالي إلى آنيغا إن ومدحوينه جمهورية فدرالك سوماليا إنتاس أو عالم صغو أمري وزارة أوقافته إيو وزارة وزيرك حفيزك مدحوينها ويري علماء سوماليا جميع طوائفهم مدارسهم مذاهبهم إيسو أرورية ويري وحان إذن كربا إن أدخدكي شلت ودرسي وركسا كو عديد أن ودنك كو حكم لها الدين تكون بدبادي لهيد إن أد إي قرطان وخير يا شرف وين أولو قريو مدحوين حسن إنكم مركم من نقون كرام من نقون يصدح مع الموت من هذا ميشن فرديني أنو إلى هذا وان نحسنه سببته ولما أركن توصيات يا أفكار صحة أو الربا إن لقروه أو الديوان جليو أو التفتيرو أو مدحوين أهل يراهوات هديدي علماء دي سوماليات يدكمانكم كبقولالك كن العقد كوب حسي هديدي يا إرشادك يا خيرك يا توصياتك أي كو قرين واتن إلى هذا ما أركن علماء لسوء استاجن هذا الآن معان ووعدي نوجدين وسكفر سنيا وحوي دي ساك الرق كمذا رق معموليا ورتوصياتك يا وحي اللي نوجي يري وحندريمي أنو إنا ساك وحندريمي مذنبين نحي أنت نسكن بد أنت معان إسكعنو هل كان فريسانو العقد تجد بدن نجوب بحي هذا نبري لنا إذا وقت يقول ما هذا إسكك على تجا ما حنقبل المركز أهو مسؤوليتي لنا وياري سيدا درت ولا لها يوم موضوع عدالة دوانو سوقالي وحان ربا أما آدي حنوجنا يو إن الشيء أي واجب يقول قف كستو إنك مد أهدو عدالة يا خير يو يمد إرشاد دكتور هل دقيقة وهرتي هدي أي أهيد إن أي قف كستو إنك مدهم ما أنت وساق رعا وكسحده مركز شرارك اللي تجي وحال يراها العصف الذهني إن مسكح هذا اللي جش قيسيو قفك إيرتي إمرتقى ذي شرفت إسيي خيرك إيوديستي تلاذا يقدر بين محن وجينيا محن ربعين الإله يقول وادون له أفضل ما فكرت ومسكح هذا كسر بحواك النصيحة إيوديستي يدو لله مكتوبة واتن يقبسه هدينا سيدا سمين كان ولا له يوحى إم وقد كلن كان
iyo rajihii uu madaxweynuhu noogu yeeray iyo kharashkii nagu baxay inuu khasaare nagu noqonayo daqiiqad sadaqaa kuugu daraynaa insha allah laba hadday dhiman raalli ahaw waqtiga hay u kadinin intaa kadib khiyaarta sharafta leh cadaaladda waxaa la yidhi iyo dowrka ay ku leedahay adkaynta xukunka arrintaasi waa cinwaan weyn walaalahayow ilaa shalay waxaan ku jeednay hal mawduucaan ku jeednay dad baa saasa nimankaas aan la dagaalano walaalahay cadaaladdu intaa way ka weyn tahay cadaaladda ay ummadda soomaaliyeed u baahan tahay intaa aad bay uga ballaaran tahay madaxweynihii ma joogo waxaan ka xumahay raataa wasiiradii ma joogaan anu waxaan rabaa inaan runta sheego oon cadaaladdu meesha ka bilaabataan ka bilaabo cadaaladdu markuu madaxweyne xasan iyo dowladdiisa la tashkiiliyey waxay ka bilaabataa alcadlu fi tawsiic almanaasib in ay cadaaladdu ka bilaabato guriga hoose af ingiriiska mahmaabaa jirta la yidhaaho charity begins at home meesha khayrku wuxuu ka bilowdaa meesha hoose haddayna tawsiicu lmanaasib iyo qowmiyaadkii la dulmin jiray iyo manaasibtii aan lagu qaybinin si cadaaladda sidee cadaalad u dhici horta ina weydiiya walaalaha iyo cadaalad haddii laga hadlayo ilaahay wuxuu yidhi isagoo la hadlaya nabiyullaahi daawuud yaa daawuudu innaa jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic alhawaa saaka waxaa laga dhawaajiyey qabiilka iyo dowladda calaaqada ka dhaxaysa anu gacantan taagay su-aal baa ii taagnayd waxaan rabay inaan dhaho musiibada ugu weyn oo soomaaliya dowladnimada ka haysata waxay tahay dowladnimadii baa qabiil loo fahmay dowladda hadda jirta kama hadlayo laakiin dhaqankeenna sidaasa دكتور qof meesha qofkii taga دكتور احمد hal daqiiqa igu soo dhaqayso khalaas hal daqiiqa hadda waan ku ballan qaadaya qofkii meesha joogay hadduu gurigii madaxtooyada ka dhiga meel qabiilkii isugu yeerto kaalaya oo ummadii kale xaqay lahayd cadaaladii laga fogeeyo xuquuqdii ay lahayd aan la siinin meesha cadaaladi ma ka dhici aad bay u fog tahay walaalahayow soomaaliya siduu darhata ka dhawaajiyey xildhibaankii anu aad baan ugu duceeyey maxaa yeelay ummadaha nabigeeni wuxuu yidhi inamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum دكتور وما صنت هاي وقتي دقيقة دي وادماضي ما دقيقتي وادماطي الهي خيرها كسيو ان شاء الله تعالى وقتي ونغير هاي مدة كلا تدي حلبانكي بابا الشيخ الحمد لله وركاس وددكو يكوضا ورقبان aan dhamaystiro marka halkan ما ان شاء الله تعالى وقتي 6 دقيقة تي تضباضا نو بلاواتي marka ان شاء الله تعالى culimada waxaan ka rajaynayaa mar labaad aan ku soo celinayaa culimada waxaan idin ka rajaynayaa hadalka culimada uma jeedinaysaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan u jeedinaysaan ararta ka fogaada waxyaalihii horeeto la soo sheegay ka fogaada mawduuca si toos ah u gala si aan waqtiga uga faa'iideysano ilaahay idin barakeeyo insha Allah ta'ala waxaan galaynaa su'aasha labaad waxa Sheekh Muuse waxa su'aashaada noqonaysaa mawduucan ku saabsan kaalinta cadaaladda ay ku leedahay taabagelinta dowladnimada waxaa ka hadlaya garsooraha iyo Dr. Alqaasimi marka iyagu hal qodob bay isla qaateen marka sidaasaan ku soconaynaa insha Allah aniga warqadda ay siisay sidii ugu qorantaan ku socdaa mana warqadda waxa ka qaldan yihiin garsooraha mawduuca waa runta dib ma laha sidii markii hore aan ku diyaarinay ayaan ku siiyay waa runta laakiin halkan ayay qalin ahaan ugu qoran yahay waa kana Saalax Sheekh Ibrahim marka aad u mahadsan tahay inta kale way ku hagaagsan tahay adigana waa mahadsan tahay haye mahadsan دكتور صالح قرصورة صالح وقلي كرتا إن شاء الله تعالى سؤاشي هوريتو أديكو إن شاء الله موضوع ستوس وقلي دون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد علماء الله وسلامتين سومالي أرى كما دما تمرك الله كلمة وكفتنا ورتكب بالله wadaadadu hadday iyagu xoogaa ninkii laga daba hadlaahba uu yiraahdo waa lay tacliiqiyo oo xiwaartami waayeen wada hadli waayaan say rabaan dadka kalena inay macnaha wax ugu sheegaan warkooda loo dhageysto horta waxaan rajaynayaa in yara macnaha waxa ahay dulqaad aan u yeelano inaan macnaha waxa ahay ra'yi aakhar qof kale ra'yi duwan oo hadli karo ka bacdina umada xukumaysa wixii la isku waafaqaan qaadanaynaa intaas waa kaftan yar tan labaad meeshan waxaa laga dhawaajiyey waxa ahay laguna soo celcelishay garsoorka culummadu inay galaan inay ahayd
marka horta culmo waa fadhisaa ilaahay idin tuso garsoorka culumaa joogta marka inaan cimaamad idin soo qaadanaad rabtiin waa joognaa annagaa joogno oo dili ku raaxo culmo ah marka garsoorka culmo waa idin fadhisaa waan la idinku metelaa marka taa ogaada kama maqnidina ciil hoo qabina inta rabtan waa lagu soo dhaweynaa oo diyaar ku ah hadda bari intii ka horeysa waa maqnaadeen anaa idinku siisamayna ku soo dhawaada taas waa midaas warkii aniga waxaan u qaatay muxuu ahaayey halkan laga yiri oo ah in la sii adkeeyo wixii tadbiiqu shariica waxaa la ninkii ku yiraahdo salaada duko horaan ugu ilay dheh waa mahadsan tahay waaye waa ku tadkiiriye moogtahay wixii dawladdu ay qabatay oo dastuurkeeda gashatay oo hadda gacanta ku hayso oo majaalisteedu ay macnaha qabatay hadda hal cusboonaysa dilaa dhib kama qabno waa cusboonaysi haynaa laakiin wax ma jirin yaan haddii la kuriyaa dadka meelaha fogfog ka yimid ayaysan u qaadanin waa jiraan shareeca taala saldhigeediyaan haynaa shaqadeediyaan haynaa taasna waa inaad ogaataan garsoorka markaan u imaado iyo waxaa tadbiiqa shareecada ninkii dawladda difaacaya qorano ahay wuxuu yiri xoogaa garsoorka wax ka khaldan yihiin asiga naftiisa wax ka khaldan yihiin qorano waxaan rajeynaa inaad aawe inaadan waxba laga sheegay laakiin saaxiibka hataan waa kugu dhiirana marka garsoorka wax ka baxsan shareecada islaamka ma dabaqo waxa ugu khaldanaay xeerka qoysku ahay soo maaha waa la tuuray madhabka shaaficiga haddii kula lagu dhaqaa dadka marka waa mucaamalaad iyo axwaal shakhsiya iyo jinaayaad soo maaha mucaamalaadkana kitaabka noo qoran oo macnaha qaanuunka ah kitaabka annaga noo qoran waa fiqu lmaaliki hal mas'alo oo mucaamalaadka ku saabsana ribada unbaa ku jirta wax khaldan inta kale waxay waafaqsan tahay shareecada islaamka culummada akhriya kitaabo badan laga qoray akhriya noo imaada waa ka doodi karnaa cidda wax ka qabtaa jinaayaadkaas kuu soo haray xuduudda oo hadda moogtahay keligeed annaga marka la tadbiiqu sharci xuduudaha nagu soo dhacay mucaamalaadka iyo dil kura akhlaaqda iyo dhaqankii iyo moogtaha la fiiri maayo xuduudda saxiix waxbaa ka maqan laakiin tacaasiirta tirad badan ku taallaahu waxa waaye maa yaraahu alqaadi wamaa yaraahu asulta ay aragta waa taqdiirtii suldadu ay aragtay waay xuduud unbaa naga maqan intaas naga maqanna waa ku daba jirnaa waa bedelaynaa waa ku soconnaa laakiin 90% iyo dili ku raaxo sagaal adoo heesta hal shay inaad tiraahdo macnaha hal shay iga maqan 9 kan ku tirtira meesha kuma jirto intaas waxaan ku darayaa wadaadada tadbiiqu shariica afka ka sheegayaan adinkay idin ka maqan tahay garsoore waqtigii waa dhamaaday ma iga dhamaaday halkaas kaliya bis waa dhamayaa waaba ku soo tadbiiqu shariica waxa waaye in dadka mucaamalada iyo haddii ku akhlaaqdooda la soco caqiidadooda la soxo dawladda la soxo lagu dhex jira waayo aawa dowrka culimada oo la dagaalanka musuqmaasuqa aawa dowrka culimada oo la dagaalanka muqaadaraadka aawa dowrka culimada oo haddii ku hay'adaha dawladda uga maqnaa aawa dowrka culimada oo ciidanka macnaha waxa ahay ku jira furumaha wacdigoodii aaway culimo alla tadbiiqu shariica adinkaa laydinka rabaa weelkii waa laydin tolay madaxweynuhu waa soo istaagay kaalayuu idin yidhi weelkii sharciga ahayna waa tolan yahay iyo shuruucdana waa diyaarsan tahay shaqada ciidankii aa maqan waa adinka haddaad rabtiin marka idinko ka maqan meesha wax laga qabto adinka idin taallaa seexda haddaad rabtiin weelku waa tolan yahay culamadina adili kule qiyaadadiina waa idin soo dhiibtay shaqada idinka idin ag taallaa wax dambe ayaanu la soo doonin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam بسم الله الرحمن الرحيم wax yar oo toosina ayaan maaragtay ugu soo noqday doctor Al-Qasimi xoogaa wuxuu ka hadlay in maxay ahayd waxyaabaha maalmahan lagu soo hadlayay iyo tawsiyaadkii iyo xoogaa uu maaragtay uusan fahamsanayn waxaan rabaa inaan guud ahaan ka qaybgalayaasha oo dhan waxaan rabaa in ka qaybgalayaasha oo dhan aan u sheego inaan ku shaqaynaynay jadwal
ay dowladdu og tahay culimmadu og yihiin wasaaraddu ay og tahay ilaa madaxtooye ay og tahay ilaa iyo shalayba waan ku shaqaynaynay haddana kii ayaan ku socnaa aakhirna maxsuulkeedii waa la gaari doonaa waana la isla gaari doonaa waxaa shaqaynaysa xoghayno tiro badan oo loo diray shaqadan inay wax ka qoraan marka wax kastoo lagu hadlay wax kastoo maaragtay baanalaha la sameeyey dhammaantood waa laga shaqaynayaa waxayna qayb ka noqon doonaan haddii eebbe idmo waqtigii waa kaa dhamaaday saaxiib waan ka baxay bismillaahi raxmaan raxiim waa sida uu sheegay arrinta sideedaba shirarka markii la qabto lajno shirka taxdiiriga oo diyaarisa iyo lajno bayaanka khitaamiga diyaarisa jira marka bayaanka khitaamiga rag baa ka shaqeynaya mikrofonkaaga xir saaxiiba bayaanka khitaamigana waa laga shaqeynayaa wixii culummada ay ku hadleen iyo wixii la sheegayna waa diyaarsan yihiin marka taas insha allahu tacaala baraarujin aad u fiican weeye sidii marka horeba naloogu soo diyaariyey waraaqahan ayaa kuwa kaleetana insha allah naloogu soo diyaarin doonaa wixii meesha laga yiri un baana la sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka insha allahu tacaala qaybta labaad baan u gelaynaa qaybta labaad waa waxaa weeye sugidda ammaanka iyo raadka uu ku leeyahay adkaynta dowladnimada adkaynta dowladnimada waa ammaanka siday ugu baahan tahay marka culummadu dowrkeeda waa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala waxaa aan kusoo dhaweynayaa sheekh muuse baxdo waad garanaysaan baan u malaynayaa magacaas waxa loo soo qaaday waad garanaysaan waa nimankii jabiyey nimankaas oo ugu horreeyey oo si fiican uga guulaystay marka sheekh muuse kusoo dhawow ودوهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له waxaan ku salaamay qof kasta teetalka iyo darajada uu ku joogo meeshaan haddaan si kala qaado waqti aga dhamaani xilligu aad u gaaban yahay walaalayaal sidaasaan idin u salaamay dadka aan ka soo horjeedo iyo ummadda Soomaaliyeed oo iga fiirsanaysa warbaahinta dhammaantood intaan mawduuciga gudagelin inkastoo aan ku carari doono waqtiba uusan jirin waxaan horta muhiim ah shirkan anigu waad garanaysaanoo baxda waxa igala socda asna jooga sheekheeni weyna sheekh Xuseen sheekh Axmed Cali Qayri oo culimada iga waaweyn kamid ah maalin dhexe mar la hadlay wadaad hadlay wuxuu yiri culimada waaweyn dagaalka kuma arag muusan baxda iyo wasiiliya tagin waxa rag waaweyn dagaalka uu macnaha ku jira oo shaqada wada waruusan ka hay meelahaasi meel la mid ah iyo rag xilliyo hore soo wada dagaalka ilaa xilli badan soo socdo dagaalku yahay waxaan rabaa culumoy anigu meeshaan hal kalimaan islahaa markii li 300 oo culimaha joogta meeshaan la yiri shalay waxaan mar isla hadaan kalimo helo inaan iraahdo aan ciidan qaybsano culumoy 300 inaan nahay ninka 10 wiil iyo 10 qori ha loo diro waa 3,000 oo nin waa isu keenayna muddan kala qaadayna gobolada Soomaaliya gobol kamid aan ku xoreynayna rasaas iyo raashin dawladda haysa haddana sidaasaan leeyahay waliba hadda is leedihiin asagoo awal meel ciidan la ka yimid taban waligood aan qori qaadinan igu xukuma inaan keeno iyo qoryahooda taas waan rabaa waxaan leeyahay haddaan si kaftano culumoy in dagaal shabaab socdo oo xaqa oo adiga islaantaada isku darajo aad ka joogtaan culimo lagu noqon maayo adiga islaantu isku mid aad ka noqotaan aad qabtaa sidaas culimo ku noqon mayno aan sidaan wax ka bedelno dadka iyo deegaanka horumarino saaka gabadha meeshan ka aad u qiimo badneed waxay tiri culimada saaxada imaada nin islaantiisa dagaal kala mid noqdo saaxadu taga muxuu noo tari wuxuu ka keeni shaab haduu la dagaalamo islaanta uu la mid yahay xaqana sidoo ku noqon waana muhiim gabadha dardaaranka inaan ka qayb galno horumarka wax badan oo aan dhehela waqti ugu gaaban oo kuma sii dheeraan karo waxaan isleeyahay waxa kalimadan la igu dhiibay inay ka muhiim u tahay meel dagaal la ka jiraan oo shaab lagu la dagaalan looga guuleysan aan ka imid mawduucan shalana waa jirtay maantana waa jirtaa hore la iguma sheegin dhibsan malo waan ka turan insha Allah nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiithu wariya tirmidhi darajadiisuna xasan ay ahayd oo nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam
ayuu wuxuu ku tilmaamaa 3 shay inay aasaaska nolosha yihiin man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmihi kaannamaa xiisad lahu dunya bixadaafiiriha waa nabadgelyada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha wuxuu yidhi qofka hadduu waa bariista nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nabadgelyo qaba qofna aan ka baqaynin oon weerar ka baqaynin oon qarax ka baqon dhib ka baqayn nabadgelyu ku waa bariistay waana caafimaad qabaa yacni quudkiisina waa haystaa hadduu ree habeenka ayaa maalinta wuxuu heli karaa ha haysto kabacdi waa la dhintaa waa la noolaadaa wax adduunye oo ka maqan ma jiraan yidhi adduunye oo dhan waa loo koobay 3 nabigu yuu ugu hormariyay calayhi salaatu wasalaam amniga ugu horeeya adilo kaloo sidoo kale waa macnahaas macno u tilmaamaysa waa jirto amniga hormarinaysa waxaan xadiidkaas ka fahmaynaa oo waxyaalahuna tusinaya ka mida aasaaska noloshoo dhan inuu amnigu kow ka yahay waqtigii waa nagu yaryahay sheekhow aasaaska noloshoo dhan amnigu inuu yahay kow sida awgeed waxaan leeyahay waqti ugu gaaban yahaye amnigoo la sugo waxay caddayn u tahay dowladdaasu shaqooyinkii looga baahnaa inay qabatay ama kuwii ugu muhiimsanaa iyo dowladdaasu inay tahay dowlad waddadii guusha hayda amnigoo la sugaa wuxuu aas-aas u yahay iyo saldhig horumaradii kale oo la gaaro shay kasta oo horumara oo horumar dowladnima oo horumar deegaana amniga aasaas u ah asagoo ku dul dhismaa marka xadiiskaasaan waa macnaha wax kala soo qaadi maayo waa mahadsanta sheekh intaas waxaan u malaynayaa inay dadka si fiican u gashay marka taasay ku leedahay noloshoo dhan iyo wanaagoo dhan iyo dowladnimo oo dhan amniga markii la helo ay ka dambaysaa baaraka allahu fiik sheekh muuse aad iyo aad baad u mahadsan tahay daqiiqad iyo weliba waxaan kugu daray 20 daqiiqo 20 minute second 20 second marka dhamaystir wax badan oo jeclaayo taaba rabayaa jira laakiin ummadda meesha fadhidan dareema marka qodobkaasaan intaasaan kusoo gaabina waxba ku faagan maayo marka waxaan leeyahay taydii hore haddaan ku laabto culumo aan wax ka bedelna sidaan mar dhex waxaa doctor ka hadlay madaxweynaha ma adnaan xoogaa dhihin dardaaran lama siin sheekh muuse saaka muxuu lahaa imaam caadile soo lama sheegin madaxweyne caadile waa ahlu janna la yidhi carshiga hooskiisu harsan maanta qiyaamada hadduu jaa'ir noqdana waa ahlu naar macnaha waa war iska cad warkaasu midda kale isagaaba nagu tawjiinaya madaxweynuhu macnaha diinta iyo ku dhaqankeeda maanta oo kale mar waxa laga dhawaajiyey xagga ku dhaqanka diinta soomaaliya waa ku dhaqantaa diinta laakiin waxaa naga dhiman tuuga gacangooyada u baahanayo saaniga iyo taariku salaadka iyo xuduudahaas macnaha in si fiican loo adkeeyo iyo maxkamaduhu cadaaladana macnaha wax ku cadaalad hadda jawr kuma ogin marka waan fiicannahay haddana way hagaagi doonaa insha allahu tacaala rajadu waa fiican tahay aan dadaalno culumoy ninkasta deegaanka uu ka yimid hormariyo ninkasta markuu deegaanka uu ka yimid hormariyo oo horumar kastoo ka taagan uu qayb ka qaato ayaanu hormaraynaa arrintan amniga waxay raddaan ku laabto waa kelmad qatimaaye madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor sanooyin ka hor ayuu baxdan noogu yimid mar uu sarfeyn ku marayay galmudug habeenaan wada hadalno qodbayn dheeran wada qaadannay hadalladan ku iri waxaa ka mid ahaa madaxweyne haddaad galmudug ammaankeeda sugto waad guulaysatay haddii la sugi waayo ammaankana wax badan waa qariban yihiin marka ammaanku wax kasta asaga aasaas u ah maasha allah waana ka dhabeeyaan rajaynayo xore dheeraan ku ogaya furinta dagaalka 10 habeen asagoo jiifa wabillahi tawfiiq ammaanka wax kasta asaga aasaas u ah waa arrin aad iyo aad u wanaagsan ummaday ammaanka lagu dadaalo asaga wax walba aasaas u ah dowladnimadana asaga ay aasaas u ah insha Allah taala isla su'aashaas sheekh muuse waxaa la sii ku xiga oo sii dhamaystiri doona insha Allah taala su'aasha ku xigta waa ilaalinta hantida ummadda iyo kaalinta ay ku leedahay dowladnimada doctor maxamed shucayb insha Allah taala adigana waxaan ka codsanaynaa inaad su'aasha toos u gashid waqtigana noo beeqaamisid ilaahay yiraahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد
walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shirka culimmadan barakeenaya juhuudda madaxweynahan u ducaynaynaa. hantida qaran waxa ay tahay baan waxyar ka tilmaamaya, musuq maasuqaan waxyar ka tilmaamaya, nasaahada iyo shafaafiyadaan wax ka tilmaamaya, juhuudda dowladda islaamka iyo culimmada muslimiinta iyo qoraalada ay ka qoreen la dagaalanka musuq maasuqaan wax ka taabanaya. siduu musuq maasuqa raad ugu yeeshay arrintan khawaarijta iyo dhibaatada soomaalida haystaan waxyar baan ka taabanaya, kadibna xuluushaan u degayaa anuu 40 daqiiqo isticmaalaya hadduu alla idmo. musuq maasuqu waa daahiro bulsho ama waa daahiro siyaasadeed ama waa daahiro dhaqan ama waa mid dhaqaalo oo gaamuurtay oo runtii mucaqada. dowladahoo dhan bayna haysataa. qaramada midoobay waxay leedahay waa xad dhan oo la dagaalanka musuq maasuqa ah. munadamo dhan oo caalamka waxaa jirta munadamatu shafaafiya addawliya la yidhaahdo oo la dagaasha musuq maasuqa. dowladaha iyo meelahay ka kala marayaan sheegta. sanad walbana waxay soo dejisaa mu'ashirka la yidhaahdo ashafaafiya ay dowladaha iyo kaalmahay kaga jiraan. waa la socotaan 10 dowladood oo hadda caalamka ugu fiican xagga musuq maasuqa ugu yar waa nimanka iskandinafiyaanka iyo yurubta iyo nimanka reer galbeedka ah. waxaana la soconaa dowladda soomaaliyeed inay mar walba ka soo gasho kaalmaha ugu dambeeya xagga musuq maasuqa iyo la dagaalankiisa. hanti qaran waxaa la yidhaahdaa waa diinta iyo xoolaha badda iyo beriga iyo maxaa la yidhaahdaa macaadinta dhulka ku jirta, khayraadka badda ku jira, dadka intaasba waxay isku yihiin hanti qaran. waxaa kaloo hanti qaran la yidhaahdaa almilkiya alfikriya iyo ibdaaca iyo hal abuurka iyo rikoorka dowladda u yaala iyo taariikhdeedii dheereed ee dowladda soomaaliya ee leedahay. intaas waxaa la isku yidhaahdaa almilkiya alcaama ama mumtalakaat alcaama. dadkoo dhan bay ka dhexaysaa, waa hanti qaran. markay dowladdeennii dhacday isla markii dadka waxay ku ordeen laamiyadii iyo wadooyinkii iyo layadadkii iyo nalkii. xataa waxaa baaba'ay rikoorkii guryaha, sijillaadkii dawliga ahaa iyo taariikhdii oo dhan way naga burburtay. baynama ay jiraan dowlado annagana la mida sida etoobiya oo kaloo dagaalamay, burundi iyo rundi oo kaloo dagaalamay, laakiin weli hantidoodii mumtalakaadkii dowladda way ilaaliyeen. maxaa keena marka in hantida dowladdu ay dhunto? kow waxaa ka ah markii isku soo duuduubo dhaqanka iyo kaljarka iyo thaqaafadaha ummadaha ay leeyihiin. haddii ummadaasu ay tahay ummad thaqaafo leh, kaljar soo jireena leh, hantideeda guud way ilaashataa. masaajidadii bay ilaalinaysaa, dhiiggii bay ilaalinaysaa, dhaqaalihii bay ilaalinaysaa, laamigii baa la ilaalinaya, furuudul kifaayada waa la ilaaliyaa, dhaqanka ma soo harto. dowladda islaamka ah aad bay juhuud uga qabatay suubanaha sala allahu caleyh wasalam intii maka uu joogay 13 sano. muslimiinta wuxuu ka dhisay dhinaca akhlaaqda iyo caqiidada. tarbiya iyo sinaacatu rijaal buu sameeyey. madiine markuu tagay 10 sano uu hayay wuxuu ku bilaabay wathiiqatu lmadiina oo dastuurkii ugu horreeyey oo aadana uu qortay oo wathiiqatu lmadiina loo bixiyey. 622 bay ahayd. suubanaha sal alla alay slam qodobadii uu ku qoray waxaa ka mid ahaa hantida qaran sida loo ilaaliyo, mujtamaca xoolihiisa sida loo ilaaliyo, sida lacagaha loo kala aruuriyo, intaba way ku cadda. ibnu khalduun raximahullahu tacaala muqadimadiisii markuu ka sheekeeyey siyaasadda iyo aadanaha inuu baadiye ka soo bilaabo, soo reer magaaloobo, dowlad dhisto, kaabaha dhaqaalo dhisto, sida loo ilaaliyo mumtalakaadka kadib uu diyaariyey. kadib wuxuu ugu dambaysiiyey muqadimadiisii xadaaradda iyo marka xadaaradda la gaaro. intaa markii lasoo maro baa waxaa lagu dambaysiiyaa ilaalinta mumtalakaadka. shukran. waxaan kusoo gabagabaynayaa 2 daqiiqo. majalatu alaxkaam alcadliya oo dowla alcuthmaaniya nimankii madhabka xanafiyada ay qoreen, ayadana qayb dhanbe waxay kaga qoreen mumtalakaadka iyo hantida si loo ilaaliyo. qodobkii ugu dambeeya waaqic hadda aan ku jirno iyo khawaarijtan iyo la dagaalanka iyo asbaabaha keena oo maalmaha lagu soo celcelinayay oo ugu horeysa kow firaaqa siyaasiga ah, 2 institution dowladeed oo siyaasad oo diineed aan noo dhisnayn oo hadda aan isla yahay shirkan uu ka soo bixi doonaa golaha diiniga ah. waxaa ka sii dambeeya musuq maasuqa oo dadka gaamuriyey, dhinaca diinta ka galay, dhaqaalaha ka galay, siyaasadda ka qaybgalay, suu tawsiicu tharwa ka galay. haddaan musuq maasuqa aanan lala dagaalamin dowladda soomaaliyeedna meel gaari mayso, golayaasha noo dhismaayana meel gaari maayaan,
waxaan u baahannahay mu'asasaadka dowladda in kor loo qaado, guddiyada inta dhisanna la kobciyo, inta aan dhisnayna la dhiso, check and balance la helo dad mas-uuliyiin oo hadday musuq maasuq sameeyaan la casilo, shaqada laga qaado, mujtamacana inuu noqdo muraaqib, miidiyahana la isticmaalo. wa ilaa liqaa'in aakhar, wassalaamu calaykum waraxmatullah. جزاك الله خير دكتور شعيب هذه آد بهم حسنت هاي وسوق ما سوق ولا لا تلفون هذا نجحرة ولا لا يلا هذا خير الله يسيه سواء كي عد كنا يراي سيلو مغلو إلا إنه عد كنا وبحيا مركن إن شاء الله تعالى دتك شيء كي سنة قفك حوجا شيء كأوباهن بنانك هالإسلات كان هالصوفق وهالصون نقض هدي لهيرة مركا مسوق ما سوق ودولة دوحة رجعنا يويه يشيخ وكسوق جبيه دكتور بشير ورسمة إن شاء الله تعالى iyo qaybta ugu dambeysay iswaafajinta diinta iyo dawladda doctor marka insha Allah taala diinta iyo dawladda qaabkee la isku waafajin karaa mise iskhilaafsan yihiin horta soo dhaw العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. علماؤنا الأفاضل aad baan idin salaamay. farxad gooni bay ii tahay in aan arko wujuhda culimada barakaysan. runtii taymku waa socdaa laakiin waxaan leenahay diinta iyo dowladnimadu waa iswaafaqsan yihiin. in la iswaafajiyo uma baahna. xaqan ilaahay xaqiisa nooga yimid, islaamkan ilaahay noo keenay, nimcadan rabbi nagu manaystay, waxay u baahan tahay awood ilaalisa. awoodda ilaalisaana waa dowladda, waa dowladnimada, waa maamulka, waa nidaamka jira. nusuus badan oo ilaahay kitaabkiisa ku jirta iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam, allah subxaanahu watacaala waa tii uu dadka mu'miniinta uu farahayay oo u soo jeedinayay: yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum. ulil amrigaasi waxaa weeye dadka muslimiinta ahi ay u dhiibteen hoggaankooda, xukunkooda, maamulkooda si ay u tadbiiqiyaan shareecadii islaamka, si ay u tadbiiqiyaan axkaamtii diinta, caqaa'idii, tusaale si ay u fuliyaan xuduuddii, si ay u tadbiiqiyaan fariidatu zakaat. waa dowlad. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu tegay madiina oo ugu horreysay, shaqadii koowaad uu qabtay wuxuu sameeyey xarun laga hago diinta iyo dowladnimada. masaajid buu dhisay sala allahu calayhi wasalam. masaajidkii markii uu dhisay wuxuu sameeyey in uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin, bulshadii buu dhisay. ciddii diin gaara wadatay ama wax gaara aaminsanayd ama diin kala wadatay, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey saxiifatulmadiina oo ay ku qornayd qaabkii loo wada noolaan lahaa, bulshada halkan ku jirta loo hagi lahaa, loo horumarin lahaa, looga shaqayn lahaa. arrintaasi waa dowladnimo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhisay. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii uu lahaa: kullukum mas'uulun ومسؤول عن رعيته. الإمام مسؤول ومسؤول عن رعيته. إمامكو وحو مسؤول كيه وحل لو ديبي. ما أنت دلكين الدولة بوليه شخص با مسؤول كأ بيع على قاضي كتاب وبيعدي. دولة من الإسلام كوحي أباهن تهاي بيع قفكو إنه قاله جانك إنه قرية كدبنا إنه ليه هاي شورة دي. شورة دو وعلماء دا وعدتك ماشي أنفديه. أنا أنت أنا هاي علماء الصوماليات waa dad runtii aad iyo aad u qiimo badan, laakiin waxaa loogu yeeri jiray intaan ogaa 4 shay. waxaa la dhihi jiray: sheekh, xaruurta kaala qur-aanka noo bar; sheekh, gabar baan nikaaxsanaynaa noo imow; sheekh, weliba xaafadda ka jirtee naga soo wardoon. laakiin maantay culummadii haddii jaanis loo siiyey in ay qayb ka noqdaan dowladnimadii, in ay qayb ka noqdaan in ay axkaamta shareecada dabaqaan, in la siiyey jaanis dowladdii ay oga qayb qaataan, maanta gacadiinayay ka bixin. dadkani waa dad muslimiin ah, diintooday u baahan yihiin, diintooday jecel yihiin. dad badan oo waxaa jira magac diineed bulshadii Soomaaliyeed ku kharibay. waxaa loo baahan yahay in la helo hoggaan diineed oo culummada ka yimid
oo dadka u fatwooda jiha khaasa mutakhasisa arrimaha iftada ayaga ay u gaar tahay balaayo walba aysan iska soo dhicin oo dadkii iyo bulshadii aysan wax u sheegin aysan lu goynin dad badan baa u iftooda bulshada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in la sameeyo hay-adihii dadka wanaagga fari jiray xumaanta ka reebi jiray arrintaasna culimada ayaa hoggaan u noqon karta arrintaasna dawladdu waa inay ku kaalmayso waxa loo baahan yahay garsoorka dalka in culimada gacanta loo geliyo si loo helo cadaalad لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط عدالة بإلهي كتاب كان أسود شيء أنبيادي وأصدر عدالة حقيقة مارسة عدالة حقيقة مارسة دت كان أهل الحل والعقد دت كان أهل العلم دت كان علماء إن دتك وحلو قديبه قرصورك وحلو ديبا دتك إلهي سبحانه وتعالى أقوله دتك قفك قلبك يسلقوا أجهي عبس ربي dadka lagu og yahay in ay ka fog yihiin cadaalad xumada iyo dulmiga iyo jawrka dadkii waa in garsoorka loo dhiibo Soomaali waxay u baahan tahay maanta ku badbaadi kartaa laba arrimood waxay ku badbaadi kartaa diin iyo dawladnimo diin waxay ku badbaadi kartaa cadaalad iyo dhexdhexaad iyo wasatiyo ku dhisan iyo dawlad diinta u turta dadkana u turta diintana gacanta qabsata aad iyo aad mahadsantihiin jazakallahu khayr doctor aad baa u mahadsantahay waxa aad iyo aad muhiim ah in diintii iyo dawladdii inay iswaafajisan yihiin kulligan waa ku qanacsanahay islaamku waa diin iyo dawlad laakiin waxaan u baahanahay kaliya culimadu intay ka soo baxaan meesha ay ku jiraan inay hore u soo dhaqaaqaan oo dawladda la idinkama xigay dawladdii kaale wax ka qabsada xiriirada wuxuu ka jawaabay wuxuu yiri meesha cadaaladda iyo garsoorka culimadu waa ku badan yihiin su'aashaas hore looga jawaabaan u maleynaya marka culimo la'aan ma aha ha lagu sii badiyo oo ha lagu sii daro insha Allah ta'ala hadda inta badan oo aan aqaano xiriirayaasha waa dad jaamacad sharciga ka soo baxay oo imtixaan baa laga qaadaa saasi ku galaan marka laakiin waxa u baahanahay baarlamaankii qawaaniinta dejinayay oo iyo in la isku xiro cadaaladii qawaaniin badan oo dawladdu ay u baahan tahay ummadda islaamka ay u baahan tahay qaanuunul waqfi wadankan baarlamaankiisa wali ma uusan dejinin qaanuunul jamciyad khayriga yaa iskale waqfigeeda yaa leh lama yaqaan qof leh qof baa lagu qorayaa mas waqfi islaamiga lagu qoraya waxyaalahaas oo dhan waa wixii baarlamaanka laga rabay ma wax garsoorka laga rabay waxaas oo dhan waxa laga rabaa inay samayso qaanuunul bunuuk islaamiya malihin wali qaanuunkii hore jira waxaas oo dhan baarlamaanka laga rabaa dawladana la rabaa intay proposalka soo gudbiso in la dhameystiro marka insha Allah ta'ala waqtiga waa idinku dheereynaa raali ahaada culimadu waa ku sadaqaysan waxyaalo yar yar baan ugu darnay marka waxa la gali doonaa qaybtii ugu dambeysay baan bilaabi doonaa marka insha Allah ta'ala noo soo gudbi بسم الله الرحمن الرحيم هذا سنتهين علماء إيا شيوخ ذا إيا دكاتير ترنتي معلومات بدن نجسي سي قضبضي لودي بي بارتين ندوده كقيب قادتي إذن كنا بعود سنتهين وحنو ملاينا يا إن وحيابه واحتر أولى أمد الصوماليات يدول النمذا يدين تبع كهذا شان مركوا سنتهين ماشي نكون نقضى waxaan u gudbaynaa shalayto sida aad la socoteen annagoo group ah ayaa waxaa jirtay inaan ma aragtay koox aan u soo shaqaynay marka koox kasta waxaan u malaynayaa inay soo diyaarisay qofkii presenterka ahaa oo u jeedin lahaa munaaqashadii ay soo sameeyeen guud ahaan mawduucii loo dhiibay marka haddii eebbe idmo waxaa noogu xigta in guruubyadii aan dhegaysano waxaan ka codsanaa qolooyinka maamuuska inay Philip Chartigii keenaan oo ay u dhajiyaan kooxda ugu horeysana maxay ahayd kooxda number 2 haysata number 1 haysata ismana dhexgelin karno ama haysata sagaal group weeye sagaal kooxood weeye marka group 1 iyo facilitatorkooda ama presenterkooda ayaan u yeeraynaa si bal aan u dhageysano waxyaabihii ay noo soo qoreen qolooyinkiina hab maamuuska waxaan idinka codsanayaa inaad caawisaan qofka facilitatorka ah Philip Chartiga aad halkan keentaan uu ku dhegsado si uu qofku noogu sharxo
waxay ahayd number waa isku xijinaynaa order numberkaan raacaynaa haddii ay bedmo number 1 aan ka bilaabaynaa marka sidaas la socda qofka presenterka ah ha haysto warqadda si marka maxay ahayd iishag la soo gaaro uu u yimaado stageka insha allah mahadsanidin بسم الله الرحمن الرحيم أخياري دد وين النهاي دل إدباد السجيميت شركة سومالي أردن أيها عندها كويسة دولة يدد كسومالي أردن عندها أيها كويان مركا دد كجدالة وحنكعد سنينا إن حوجان نظام كالاليان يجودهان دد كبلنا إسدجستو جروب كستا تلديس أيام رمنا سوجيدين تيس أيام رمنا إن دجيسنو marka doctor jaamici doctor xasan jaamici ayaa noogu horeeya oo group 1 u sida maxay ahayd calanka insha Allah welcome بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan horodhac degdeg aan u samaynayaa qodobka koowaad oo ah qodob Dr. Maxamed Xuseen uu ka hadlay laakiin su'aasha maxay ahayd su'aasha waxay ahayd sidee waa maxay doorka culimada ay ka qaadan karaan la dagaalanka fikirka xag jirka gacanka hadalka ah iyo fikirka khawaarijta iyo daaweynteeda marka waxaan ku soo ururinay dhowr iyo 10 waxaan u maleynayaa 16 qodob aan u sheegayaa intii ilaa 30 qof aan ahayn 30 keena qof waxaan isku raacnay marka waxaan number 1 aan ka dhignay number 1 waxaan ka dhignay waxaan oo dib oo socdo dhan inay xal u noqon karto in shariicada islaamka si rasmi ah in loo tadbiiqiyo هداية الدكتور محمد يوسف هالكان وكشاجي مرسومة لو بهاية مركب وحان رباه دتك خاركود هردا قشي هردا ربنا إذا كيك عيو ودن كمريكانكا مركب جوجنا وحي حكمة قف كسر لقى قاطع سوما الحكمة ضالة المؤمن سوما أنا وجدها فهو أحق نعم قفك مؤمن كحكمة كسر حق وحاجة تمركي واحد دق الله ربه إن إسبدل القصة مايو أو حد الله هلو أو حان لهنا كسر قاد وكلا شرع ربنا في إنجليش أقول شيء جاي أب سومالي نا يقدر هذا ربنا مركو رد جيس تفهمه what we want محان ربنا شريعة دنو حلها when كورمان ربنا now هذا مركز محان هنا tomorrow بري مسوي كرنا no مايا ما يهد سيدي وكلام له هنا مرك وحربنا مرسوم ك واقيل نيسين مرسوم ك الله رب ضدا وحير هذا 2009 كي
ayaa arrintan baarlamaanka ansixisay fiiri hadalkaas run waaye laakiin baarlamaankaasi wuxuu ahaa baarlamaan kumeel gaar ah sharciyada caalamiga waxay sheegaysaa institutionka governmentiga hadduu kumeel gaar uu yahay sharciyadiisuna waa kumeel gaar ilaa loo gudbayo institution dowlad rasmi ah oo kumeel gaar aan ahayn dowlad rasmi ah oo kumeel gaar ah oo dowladdii xasan sheekh ugu horeysay markay timid ilaa hadda marsuumna ma soo bixin sharci baarlamaanna ma soo bixin marka waxa doctoorka iyo annagoo dhan aan codsanayna waxa waaye marsuum ri'aasi ah ama executive order luqadda englishka ah madaxweynaha hadda na dhagaysanaya na maqlayo 24 hours shirka intuusan dhammaan ka hor inuu soo saaro ay qayb ka noqoto maxsuulka taasna waxay afjaraysaa qayb ka mid ah dhibka dadkan khawaarijta ama maafiya magaca arabtinsiya ay nagu hayaan marka waxaan rabnaa markaan dhahayno maxaan rabnaa shareecada waa hirgelinteeda oo dhammaystiran marka waxaan dhahayaa af soomaali maxaan rabnaa waxaad leedihiin shareecada hirgelinteeda goormaan idiin dhahayaa hadda berito aan idiin weydiinayaa diida maya dhaha okay marka waa isla dhamaynaa maxaan rabnaa goorma berito waa mahadsantihiin qodobka koowaad halkaasuu ku dhammaaday waa hirgelinta shareecada islaamka oo qodobka labaad waxaan codsanayaa inaan leega joojin ilaa aan ka dhammaynayo raalli ahaado markaas kadib maamulka qofkii raba su-aal weydiisan karaa tacliiqna wuu samayn karaa qodobka ku xiga waxaa waaye wacyigelinta oo joogto ah oo dhinac walba ah oo noqon doonto daawo joogto ah waana inay noqotaa wacyigelintaasi dhan kasta ay ka mid tahay miidiyaha masaajidaha dacwatu shaaric iyo waddo kastoo loo adeegsan karo in lagu gaaro caqliga soomaaliga meel kasta uu joogo si fikirkan loo zuuliyo waxaa layidhi dhakhtarka fiican waxaa lagu gartaa beeshinkiisuu dawada ugu celceliyaa dawadana waa dawo tayo badan marka culummada laga rabaa wacyigelintaasi inay joogteeyaan mid tayo leh oo dhinac kastana taabanayso si fikirkan loo zuuliyo laba baabi'inta khilaafka culummada dhexdeeda dawo waaye iyadana waa laga soo hadlay anaguna isku raacnay culummadan kale itijaahaadka kala duwan inkastoo usuushi iyo wax badan aan isku waafaqsannahay inaan isku nimaadno wixii kale sida shalay loo sheegoo kale oo doodo khaas ah oo dhexdeena ah si gooni ah aan u samaysanno laakiin wixii maslaxad caam ah aan ka midasnaano khilaafkaasna wuxuu soo dedejinayaa hadduu khilaafka tago in dadkan lasoo afjaro saddex caddaynta xukunka sharciga ah ee fikirka khawaarijta ama maafiyada taas waxay u baahan tahay inkastoo bayaan laga soo saari doono caddayn joogto ah culummada si wada jir ah iyo si keli ah taana waxay soo dedejinaysaa dawada xanuunkan khawaarijta iyo maafiyada afar culummada inay hormuud ka noqdaan la dagaalanka maafiyada khawaarijta ah oo iyaga horjoogayaal ay ka noqdaan aagga dagaalka waa sheekh baxdo magac fiicanuu wataa hadalkii hadda uu dhahay marka sheekhaas waxaan ugu bishaareerayaa sheekh cabdiraxmaanna wuu dhahay macnaa diyaar ma u tihdeen waaba soo baxnayba waaba joognaa dagaalkiiaba hadda ku jirnaaba xalaaba telefoon loo soo diray ninkii xalina diri lahaa telefoon noo soo diray waxaan weydiinay meeqaa rabtaa meeqaa qaadanaysaa wuxuu dhahay $20 aan qaadana inaan ku dilo anna waxaan u sheegay $100 haddaan ku siino oo shaqo aan kuu raadina ka waran marka qodobka kale ku xigo la dagaalanka jahliga way wax badan ay sameynayaan jahli u sameynayaan iyo baridda ummadda manhajka wasatiga ah waaya manhajka wasatiga ah in la xoojiyo jamaacaadka manhajkan wasatiga ah ku shaqeeyana in la kobciyo oo la taageero anaa mararka qaarkood iyadoon la isriixriixin waa la isyaqaanaa waxaa jiro jamaacaad manhajkooda oo dhan uu yahay wasati oo weligooda dagaal soomaali qeyb aan ka noqon jamaacaadkaasi iyo fikirkooda oo islaamka waafaqsan
in la kobciyo oo laga qaybgeliyo fikirka soo afjarka insha allah 6 in laga digo afkaarta qaldan ee khilaafan afkaarta iyo manahijka wasatiga ah dedejiya lagu yiri 7 midaanta tawjiihaadka ay culimada Soomaaliyeed ay bixinayaan tawjiihaad fara badan la bixiyaa laakiin anaga inaan la nimaadno nidaam tawjiihaadkaasi mideynayo isla markaasna sabab u noqon kara afjarka fikirkan abuuris kulama joogto ah sida kan oo kale 6 bilood le 3 bilood le sanad hadba oo culimada ay isku arkayaan dhibaatooyinka jirana diin ahaan xal loogu raadinayo qof aan rabay kaalmeeyo waa soo dhamaystirayna insha allah ku qabaysay okay qodobka ku xiga dhaqan celinta qodobkan waa muhiim si fiican u dhageysta dhaqan celinta dadka ka soo noqday afkaarta khaldan ee khawaarijta iyadoo lagala tashanayo culimada qaabka dhaqan celinta duruusaha dhaqan celinta dadka soo wada noqona isku wada mid ma ahan mid 10 uu soo dilay mid 75 uu soo dilay mid 100 uu soo dilay mid wuxuu ku jiray 10 sano mid wuxuu ku jiray 5 sano mid hal sano kaliya ku jiray mid waa yar yahay meel dhaqan celin aan tagay wiil yar aan arkay oo ku dhex jira dad waaweyn waa joojiyay waxaan istaagay meeqsana jirtaa wuxuu dhahay 8 ani warkaasi wiilkayga 8 jir uu ahaa waxaan wiilkayga la faactahay al-shabaab ma tahay muxuu dhahay mataqaana yar xamar ahaa ifirino kulaka al-shabaab ifirino adiga si inta ku timidaan dhahay askarta igu badsanaysa noo og dhahay su'aashaasi waa fariin madaxweyne xasan in la furo xiwaar joogto ah oo 3 geesood ah culimada iyo kooxdaas xiwaar uu naga dhaxeeyo qaabku doon ha aado si toos ah si aan toos ahayn xiwaar cilmi ah culimo waa naga dhexdeena iyo xiwaar culimo dadweyne sida xalay oo kale xiwaar aan sameynay aniga Sheekh Cali Wajiis dadweynaha aan u sameynay national TV culimada TV-yada ay tagaan dadka xiwaar aan la sameyno saddexdaas nooc oo xiwaar waa inay joogto ahaadaan ilaa waxaan rabnaa fikirka in la soo afjaro 11 culimada inay cadeeyaan xukunka kuwa taageersan oo ku taageerayo qaab dhaqaale iyagoo is ogeyn wiil dhalinyarada kamid aan la hadlay wuxuu dhahay lacag baada laga qaadaa sababta markaa weydiiyay wuxuu yiri amnigaygan ku ilaashanaya maxaa laga rabaa marka dawladda in wiilkaasi oo ganacsadaha amnigiisa ay sugto in la helo isla markaasna la xusuusiyo qof kastoo taageera al-shabaab al-khawarij kooxdan noocu doonaha taageerada in uu hoosgalay aydi ahayd wala tacaawanu ala al-ithm wal-udwan dambiga taageerada inuu la mid noqonayo qofka ficilkaasi faraha kula jira ay wax dilayo aan dedejiyo 3 hartay raalaha in la helo golo culimo ay leeyihiin oo awood fulin leh golo caadi ma aha awood fulin oo marjaciye ah leh dawladdan ay aqoonsan tahay waa golaha hadda aan ka shaqeynayno waxaan rajaynayaa golahaas inuu inta ka soo baxo ilaahay idinkiisa 13 in la waafajiyo garsoorka dalka shariicada islaamka waa tan hadda xereelaha uu ka hadlayay iyo in la sameeyo guddi mutaabaca sameynayo garsoorka wax badan ka khaldan fiiri haddii xaqa aan la sheegin waxa booskiisa galayo in baadil lagu shaqeeyo waxyaalaha khaldan in la saxo waay qaabkii loo saxi lahaa culimada iyo garsoorka inay ka wada hadlaan oo xal loo raadiyo musuqmaasuqa la tirsanayo waxyaalo fara badan oo dhibaa la tirsanaya waaya 14 kaliya 3 hartay in maxkamadaheena ay ummadda cadaalad u sameeyaan si ay ummadda aysan u tagin maxaakimta khaldan ee khawaarijta ay maamulayaan waa muhiim marka cadaaladda halkan inaan ka shaqeyno waay 15 abuuris hay'ad wanaag faris al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hay'adan aad loogu baahan yahay fasaad badanaa socdo drugska fasaadku waxa kamid ah waxyaalaha dilka faraha badan ciyaal weero groupka la yiraahdo waxaasoo dhan waxaa xal u noqon kara hay-ad al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar oo booliiska hoos timaada oo tababaran booliiskana loo tababar hay-adaas inay u shaqeeyaan qodobka ugu dambeeyo waa dhaqdhaqaaq cilmi ah ee tasxiix ku sameynayo
mafaahiimta isku dhex khaldantay waxaana tusaalaan usoo qaatay waxaa ka mid ah weerar shalay magaalada ka socday oo websaytyada lagu soo qoray qodobkana ugu dambeeyo dad badan waxay soo qoreen waxay leeyihiin dastuurka shareecadu waafaqsan yahay anaga waxaaba dastuur noo ah qur-aanka iyo sunnada fikirkaas inaan saxno waaye dastuurka wuu hooseeyaa dastuurka waa documents dad ay ku heshiiyeen nidaam dawli ah ay rabaan inay qaataan oo shareecada aan ka hor imaanin qur-aankana waa mabaadi'dii asaasiga ahaa ee lagu noolaan lahaa oo dhan qur-aanka laga qaadanaya marka dastuurka hooseeyo qur-aanka iyo sunnadaa sareeyo wayna kala duwan yihiin qofka soomaaliga ah oo ku dagaalamayo qur-aanka iyo sunnada dastuur noo ah dastuurka wuu ka hooseeyaa qur-aanka iyo sunnada qur-aanka iyo sunnadaa sareeya dastuurkana waxa waaye wax lagu heshiinayo wax laga bedeli karo wax lagu kordhin karo isagoo dhan la tirtiri karo qur-aanka iyo sunnadana sidaas ma ahan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم جروبك لبات أما كوحدة لبات السعودية رجرودو يا برسنتر كودا waxaan ku talagalnay in presentationka lagu soo koobo min 3 daqiiqo lagu soo koobo Dr. Xasan Jaamici khayr Allah siiya xoogaa uu ku dheeraaday casarkii waana hayaa 8 group kale way noo dhiman tahay shaqooyin kale la rabo inaan isu dirno ayaa jira marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay 3 inaad ku soo koobto group 2 groupka labaad laga hadlaya waa isleeyihiin waa caawin kartaa soo fariiso inta soo istaagin waxaan rajaynayaa inaad 3 daqiiqo aad ku soo koobtid waxaan kaloo rabnaa inaan sharaxaad inaan lagu dheeraanin waxaad group discussion leedin siiyay inaad qodobaysaan waxa aad ka hadlaysaan waxaan kaloo rabaa waa soo jeedin ee go'aan ma ahan si kale yaan loo arkin dawladda ayaa waxaan maaragtay ii sheeg mulaaxadayn doonta haddii ay beedmo marka go'aan ma ahan group kasta taladiisa iyo soo jeedintiisa waaye taasna maaragtay waa idin xasuusinayaa waa ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحنا هاي جروب 2 مرة إن أنكو ديرادو وحي قضبضي أي ولا له كجواب بندن آخرنا يا محيا لي كل جين وحاتين دد مارتي علماء شرع وبندن اللي شرعه مركا أنا صرت أنا دين آخرنا يا سؤال شو حويا أنا جروب كيو كشقيي ورق علماء ها يو كيسنا آخريو يو جزاهم الله خير رات كحن كدلان كرا كمشغولين تأمدا أهداف تيدا يو يا مسير كذا أهدافته استراتيجية مسير كذا هدي أمة لقى مشغوليو محاك دلنا كرا مشغولين تاس سيدا هذا شبابكو أيوة مشغولين أمة الصوماليات إن النبض كون نولاتو إن يوحبرتو إن متقنا خيرات كذا قطان سأقول مشغول سكر هدي لقى مشغوليو سؤال مركز مدكوبات وحويان دبودع بولشو ودرع كستا كدلنا يا وان نمبر كو نمبر لبا وهكذا يا فقري يا دقال حمو نمبر 3 وهكذا يا أمن درو لمبر 4 وهكذا يعني وهكذا إسآمن الآن لمبر 5 وهكذا فساد دنا الدين تا يدقنك يا أخلاق يا كذا لمبر 6 وهكذا دولة الآن لمبر 7 وهكذا كلي تلسنمو يو متقنا كلي تجد يوم من الآن ومت عن مدرسينه كلا تكتا يا كذا لمبر 6 وهكذا جهلي يو عذره لمبر 9 وهكذا dhaqamada xun oo ku faafa bulshada dhexdeeda sida mukhadaraadka iyo maafiyada iyo mataqaana rabshooyinka lambar 10 dalka cadowga uu nuglaanaya ummad kasta iyo cadow kasta waxa u fudaanaysa inuu si dhibir dalka ku soo galo oo khayraadkooda uu mataqaana la baxo waxa ka dhalna istixgelin la'aan ummadan istixtiraamaynin mid ka weyn ka yar una mataqaana unan ka yar ka weyn u ixtiraamaynin ka weynna ka yar u soo dhaxrisanaynin ayaa ka dhalanaysa oo is-ixtiraam la'aanta 12 waxa ka dhalanaysa yani dagaal sokeeye inay ka dhashaan oo dadku islaayaan oo dagaal sokeeye ku bataan
lambar 13 waxaa ka dhalanaysa faafinta fikrada xagjirka ah fikrada xagjirka waxay noqon karaan kan khawaarijta waxay noqon karaan afkaarta kale ee diinta dadka laga bedelayo oo mataqaana iyo waxyaalaha kale la soo gelinayo diimaha khaldan iyo afkaarta khaldan iyo waxaas la faafinaya waxaa ka dhalanaya mataqaana iyadana lambar 14 waxaa ka dhalanaya dantii guud oo baaba'da dantii guud ee ummadda baaba'aysa marka qof kasta wuxuu noqonayaa qof danihiisa oo ka shaqeeya oo danta guud ee ummadda aan daryeelin lambar 15 dhammaan arrimaha ay soo qoreen culimmadu waxay kusoo gabagabeeyeen arrimahaas oo dhan waa arrimaha maanta na haysta ee haddaan Soomaali nahay halkan aan joogno na dhigay wabillahi tawfiiq group 2 aaday u mahadsan yihiin tacliiq iyo sharaxaad dheeraada lagama gaari karo groupka saddexaad ayaan u yeeraynaa groupka saddexaad groupka saddexaad qofka u jeedinaya aaway waan ka gudbaynaa groupka afraad presenterkooda diyaar ma yahay groupka afraad qofka u jeedinaya ha soo gaaro stage ha soo gaaro si degdega waqti ma jiro 3 daqiiqo haysataa meel fiican istaag warqabta hadda ma ana akhrin sida laga rabaa shaqadana wax qoran waa haye wata adaa lagu sugaya bismillah shida بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لأنه دراسة لترينا كان نقاشنا وحي أهايين خوارج تما إذا استرتي وإسكيد سودرتي مثل شغالة إهايسو وحويان شغالة ودري وحان أوجد جوابني سؤالة دور سؤال ودان كجا جوابني ويقول رئيسو inaysan iyaga isdirin oo aanay iskood isu dirin ee la diray taasina waxaan daliil oga dhignay nimankii aasaasay gaar ahaan Soomaaliya dadka soo gaarsiiyay oo annaga aan naqiinay oo ay kamid ahaayeen ragga hadda shabaabka ka tirsanaa ee la dilo adinka baa taqaanaane oo kamid ahaa Ibraahim Xaaji Jaamac Micaad ama Ibrahim Afghani waxa loo yaqaan oo magac aragtaan dhaama Macalin Ali sida Cabdullaahi Saal oo Soomaali galbeed ka soo jeeday iyo Macalin Aadan Xaanshe Faarax Cayro aad taqiineen nimankaas fikirka ay keeneen maadaama uusan ahayn fikir Soomaaliya gobolada Soomaaliya gobol kamid ah fikir laga keenay maadaama uusan ahayn inay gacmo shisheeyay jiraan hadda horeyna ay u jireen taas daliil waa kow tan labaad waxay tahay waxay ku dhawaaqeen oo si cad oo bareer ay u sheegeen tanziim al-qaacida inay la midoobeen Axmed Cabdi Maxamuud Cabdi Gudane ama Abu Zubayr isaga si cad u sheegay ka hor geeridiisii in tanziim al-qaacida ay la midoobeen tanziim al-qaacidana ma ahan dad Soomaaliya xukuma ama Soomaaliya ka shaqeeya ma aha tan saddexaad waxaan ogsoonahay afkaarta iyo fikirada lagu maamulo fikir dad Soomaaliya laga keenay inuusan ahayn tan saddexaad waxaan aaminsanahay oo isla garanay dawlado xitaa aan muslimiin ahayn inay dhici karto cilaaqaadkooda inay leeyihiin taasina waxa loo sababeeyay waxa la sheegay ama la arkay dayuurado badan oo meelahooda ku dhacay ama ku degay oo cid wada iyo cid wax laga soo badbaadiyay aan la aqoon oo kadibna meel ay ku dambeeyeen la waayay marka saa daraadeed wax loo dirayna ma jiraan fikirkana fikir islaam ah ama dad muslimiina laga soo naqliyay ma aha waa fikirka noocaas ah oo meelahaas laga soo naqliyay haddii la saamaxana waxaa jira gabaya aan ka sameeyay
haddii kalimateen laga ogolaan karana waa soo jeedin lahaa. waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya inaan u hambaliyeeyo doorashadiisii marka labaad uu kusoo laabtay kursigan iyo qabanqaabadan uu sameeyey iyo barnaamijkan oo noo sheegay inuu hoggaanka culimada Soomaaliyeed ku wareejiyey. saas daraaddeed madaxweynaha waxaan leeyahay mudane madaxweyne hagardaamadiid iyo halyeygii dalka tahay, hayin haaman sido iyo hormuudkii dadka tahay, halgan diiran heer qaran nin u heelan baa tahay, hambadiid han weyn iyo harka lagu hirtaa tahay, halgamaa markuu hadlo hiil walaal helaa tahay, hoyga haybadeen iyo hoggaankii dalka tahay. culimada Soomaalidana waxaan leeyahay hebel baa munaaqib akhriyo iyo hebel usul thalaatha akhriyo macna ma samaynayse isku duubna oo isku duubni muujiya. waxaan leeyahay isku duubni muujiya dib jir iyo hal doorkiina dabarkuba mar buu noqon hoggaan dani hadday keento iska daaya dood badan hadal waa duluuc diiran dacwad ooga eedma hore doqonna daandaansi. iska daaya dood badan hadal waa duluuc diiran dacwad ooga eedma hore doqonna daandaansi. isdifaac dil oo daldal cadowgaan ku doonaynin kuna duul adoon dagin kollay mawd ma daayeene kanadaa dagaal iyo dariskaaga daandaansi u danee rag iyo dumar hadba kaan daryeel haysan. hogaamiyaha ururka wadaadka bukaan socodka ah Axmed Diiriyana waxaan leeyahay Axmed Diirshe waa dulli iyo dayuus la dayriyey waa dembiile caan ka ah dunidan ku noolnahay dalka iyo dadkoo idil waa ninaanu diirnixin dib jirkii difaacana dil unbaa u daawo ah. axmed doon badweyn degtay nin dul saaran baa tahay dilka ruux kastoo dagan nin ku diirsadaa tahay dabin deero loo dhigay nin dul taagan baa tahay doqon iyo alqaacida ku danaysataa tahay. waa habaarina waxaan leeyahay dhagarqabo u dhimo dhaawac ku soo gaaray oo dhurwaaha ka dhergo dhibcaha dhiigaaga dhuunkaalna waad dhadhamisay ka dhursug dheefteeda dhaacuun ha kaaga dhaco dhidibada dheefshiidka. dhegta dhiigga ma u darnay dhaxal wadaagaagii dhambaal adag ma u dirnay dhargalkii soo dhoofay dhowhanow intaad dhicis dhallaan mooday dhuumaalaysi ma ku jirtaa dhabta markaad eegto. dad badanoo waxaan arkaya dhahayo dagaalkan maanta Soomaaliya ka socdo ma jihaad ba si waa wax kale. waxaan leeyahay dhalinyarada ka dagaalamayso daafaha dalka Soomaaliya dembi male dugaagta tan ciddii naga dulqaadaaye oo dadkoo idil u damqataa una dadaashaaye oo dilaaladan kala dirto dalka ka saartaaye oo dariiq walba in dad lagu dilaa durbaba diidaaye. dembi male dagaalka kan ciddii duco ku kaabtaaye oo daryeel dol iyo dibad durba la dul istaagtaaye oo dastuurka diinta eebbahay dadka u sheegtaaye oo dayuusyadan dalba lahayn dacwad ku ogtaaye. dembi male dameerahan ciddii diiradda saartaaye dilka dadkay ku diirsadaan kuna dadaalaane diinta qabtay ku doodayaan dulmina weeyaane dar eebbe ruux in loo dilaa cidima diideene. dembi male ducay heli ciddii dirirta aadaaye dagaal inaan galnaa hadeer daruuri weeyaane duq iyo doob rag iyo dumar kollay cadow ma daayeene dowladnimaana deeqda bay doqonta diidaaye. wax badan baa iga buuxlo laakiin waqtiga aynu saamaxayn. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ آدو مهدسن يهي هلكي أن كسوغيني presentation أساقا ميل كالي أو إيو قبابو نلا آدي جروب كشانات سو جيدين تودا جروب كاللحاد يان وقود بينا جروب كاللحاد يا وجوغا جروب كاللحاد شانات ميا سو غاري محل دين واي. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalyaalow culumooy waxaad tihiin dad culimo ah dad dakaatiir ah salaadii casar waa la gaaray waxaan rabnaa inaan presentationada iska dhamayno marka halkan ma taagnaanayne marka sidan loo dhameeyo qof baa ku xiga marka waxaa la rabaa inaad maaragtay qofka ku xiga uu isla markiiba diyaar garoobo insha Allah horay ka gal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد
جروبكنا سؤال شو حياة بحنانين تي بوكسين تفكر كخوارج تي حق لماذا الدينية سؤال شو سيدا سيهاد أفكارتي عن ورورنا إلى سجال قضب أيام ماشي عن قرن أيجان آخرنا أو كلية قضب كواد وحواية إن لا سماية وعي جلين جود دون والبله دون والبو مركا وسيده داي الله شرحي أو دكتور كو شرحي أي راعيسا لمبر لبو إن لا أوروريو شبهات كودا لغانا جوابه إن لا أوروريو شبهات كودا كدبنا جواب لغا بحيو قدبك سدحاد وحواية إن لا هوبيو مراكزتا بربارينتا وبدكا أفكارتك بحيس قدبك كالو حواية إن منهجك وحبرشدا لغو دارو مادو كهاد ليسا كهرتجا فكرتها قلدان قدبك لو حواية إن لا دياريو قرال لو باهيو جوابها عبادة يوحبر الشذا أو لو فافاهنا يو خطرها يهلستا فكر كاس إن قدبك كله إن لا ديسو قولة مرجعية أو لولا لابتو دمان أرمهاس قدبك لو حواية إن لقى حنبو إله دقالها قدبك لو حواية إن لقى هرتقو فكرتها فرقلينتا الشيشية كبعينيسا أفكارها قلدن halkaas qodobadaas ay ahaayeen qodobadii aan anaga isla soo garanay groupkeeni waa mahadsantihiin assalaamu calaykum aad u mahadsan yahay waxaa noogu xiga groupkii saddexaad oo aan daayto ka yara boodnay waxaana u soo jeedin doonaa wasiirkeenii hore saaxiibkayga aan soo wada shaqaynay دكتور حندوبي raalli ahaada waxaa maqan qofkii aan u dhiibanay warqadda anoo kale waa maqan yahay marka anugu waa iska qortay shalay dadaal ahaan wixii aan qoray baan idin akhrinayaa maadaama uu qofkii maqan yahay juhdi badanna la geliyo aanaan rabay waxay meesha ka maqnaadaan waxaan inoo dhiibay waxay ahaayeen fasiraadda diinta qaldan maxay keentay dhibaatooyinka ka abuurma diintii markii si qaldan loo fasiray laba cunwaan bay ku isugu yimaadeen cunwaankaasoo ah diin iyo adduunyo la'aan iyo burburun qaran ayaa horta cinwaan u ah laakiin markaan hoos u galo muuqaal xumo diimeed ayaa yimiday markii diintiisa xun loo fasiray culummadii oo kala qaybsantay madmadowna dhex galay baa yimiday oo dhexdoodii ay dhibaato ka dhalatay waxaa ka yimiday xag jirnimadii oo aada u baahday waxaa ka yimid markaas dhibaatooyinkaas faragelin dibadeed oo markii diintiisa xun loo fasiray shisheeye nagu soo dhiiraday waxaa ka dhashay mas-uuliyaddii oo gacanta u gashay dad aan u diyaarsanayn idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadri saaca waatii xadiidku ahaa waxaa ka dhashay caburin iyo cabsigelin bulshadii ka qaaday waxtarkoodii hal abuurkoodii maadaama qof waliba uu lafiisa la cararay waxaa ka dhashay ku dhiiranaan fatwada diinta lagu dhiirado ayadoo dadka aysan u diyaarsaneen fadalluu wa adalluu waa la socotaan xadiidkaas dabcan waxaa ka dhashay wixiina kala geynayay in la xoojiyey wixii isu keenayana la yareeyey waxaa ka dhashay in waldooyin qaldan loo maray diinta fidinteedii ama loo maray jihooyin ama meelo aan sax ahayn waxaa ka dhashay jiha wareer diimeed oo bulshadii galay maadaama ay dadkii leeska hor keenay oo waxyaaba xagga dad iska soo horjeeda oo qof walba allahu akbar leeyahay oo diin sheeganaya dagaalamaya waxaa ka dhashay kala qoqobka bulshadu inuu dhacay oo bulshadii jahawareerkii aan sheegay kala qoqob keenay iyo ugu dambeyntii dhiiggii bulshada ama muslim kaliya ma aha dabcan anugu aragtidayda dee ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiig qof kastoo dulmi oo madluuma dhiiggiisu waa waxa weye ma bannaanay in dhiiggii la bannaystay nooc walba uu yahay marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin جروبك اللي حاد أيام نوجو حجا برسنتر كود هنسوق جارو سو جديه هودا دق هنسوق جارو وأديك ما هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وما سنتين جروبك اللي حاد سؤاشة أو ضدنا نلهر دقة وحيات أسبابها ضلية فكر كقواريت
aragtideenna soo aruurinana ilaa waxay noo gaartay 21 eray bixin ah u sameynay 21 kaasoo ka bilaabanayo diinta oo faham qaldan laga bixiyo noocyadeeda kala duwan cadaalad darro 2 ilaa 9 min qoyska kasoo bilaabatay ilaa meesha ugu sareyso saboolnimo oo ayadana dhibaatadii ka mid ah dhibaatooyinka oo sabab khawaarijta tafaraaruq kala qaybsanaan oo ayadana sababtay waxyaabaha sabab ku jiro quus nololeed dadka markay quus nololeed qaateen ayaa ka mid ahaa asbaabaha warbaahin guracan iyo warxumo tashiil waxaa ku jira qodobka 7 waxa waaye warbaahin guracan markii warbaahinta si qalada loo isticmaalo haddana waxyaabo yaryar in la isku soo dardaro oo xumaato lagu sii abuuro warxumo tashiil ahaato ayadana asbaabaha ayaa oo dhaliya ayaa ku tilmaanay baqdin ayaa dadka gelisa asbaabaha keenta ku jirto oo qofka gabaad ku raadiyo ama dembi uu gale si aan loogu qabsan ama aan loogu argudan oo ku dhunto faragelin shisheeye bimacna alkalima ku dheeraan maayo numberka 10aad dhaqan guur sidii dhaqan guur oo ah birmigeydada iyo wax allaala waxa hidiye dhaqan u lahayn oo annaka ixtiraami jirna oo ka gaabsi jirna oo ka xishoo jirno la banaanaysta ayaa keentay in qawaarij aan tagno xuduudka kale aan u gudubno xooladoon bimacna alkalima qof wax doonaayo oo dan ku raadsanayo ama dhibaato inuu xoolo ku helo rabo xukun doon diin doon nin diin raadinayo taasna waxaa kusii tilmaanay xamaasad diin jecel qof raadinaya ayaa xadkan kale u gudbo oo markaas iyo ifraad oo watafriid carabiga sida fudud loogu fahmi karo marna waxay keentaa xamaasadii diin jecelka ahayd diin jecel marna waxay keentaa xagjirnimo marka xakameen la'aantaas diinta ayadana way keentay doqonnimo ayaa ka mid a qofkii asoonan micnaha wacyigiisa kirsanaan oo hayiraac ah kaale in la dhaho ciyaartan gees ka soo gal oo gali karo waxyaabaha meelaha ee keento waxaa kaloo jirto hiila la'aan qof dhibaato ku dhacday dhibkii markay gaartay wuxuu waayey ahalkiisoo garab qabto wuxuu waayey maxay ahayd caawimaad dowladeed wuxuu waayey mid qabiileed markuu wax u hiiliya dhibaatada haysato uga garaabo uu waayey xadkaas kaloo gala marka asna meeshaas waxyaabaha keenay ku jirtaa habaar waalid qof habaaran oo la kida ayadana xadkaas wuu gudbiyaa cadaadis iyo caburin qofka loo geysto cadaadis iyo caburin loo geysto hay-adoo ka shaqaynaya goob shaqoo joogay gooboo wax ku baranaya waxaa suurtagal arday jaamacad joogay in jaamacaddii laga raaceeyo oo xadkii dhaafo